نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الور marka dambigaagu bato oo aasaantaadu badato ayadana waxa ka dhashay in qalbigaagu madoobaado sida xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulku tilmaamay adoonku markuu dambi galo dambigaasi dhibic madow uu qalbigiisa ku dhaliya mid kale haduu galana mid kale uu ku dhaliya haduu toobad keenana waa laga tiraayo waa laga saxaa waa laga soofeeya haduu ku laabtana way ku noqotaa ila qalbigiisu wada madow noqdo mar haduu qalbigu madoobaadana haba yaraatee waxba qaadan maayo laana qalbigu sida quraanka kariimku ma tilmaamayo qalbiga bini aadamku in dhuu leeyahay uu wax ku arko oo aan ahayn indhaha madaxa ku yaala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur qalbigu waa indha beelaya وبالتالي waxba ma kala saari karo waxna ma kala sooci karo ذنوبته hadday kugu badato tawbadaadi soo noqoshadaaduna yaraato waxa ka dhalanaya in qalbigaaga madow fuulo oo isagoo dhan madoobaado وبالتالي quraanna gali maayo wacdina qaadan maayo mana saamoobayo wa ka rabbi tabaaraka wa ta'ala ku tilmaamay idha tutla alayhi ayatuna ayatka naga marka lagu dul akhriyo meeshii la rabay inuu kuwana qaato intifaacsado yaa wuxuu leeyahay asaatiirul awwaliin waxaan quraan ma aha waa sheekooyin la soo ururiyay ummadii hore ku tiri kutoonteedii waxay ku sheekaysay sheeka baralaydoodii waa maxay yeelay muxuu u qaadan waayay markuu halka ka baxayo warka uu la yimi waxa uga dhaweyd inuu intifaacsado muxuu u intifaacsan waayay allah wuxuu tabaaraka wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun qulubtooda korkeeda waxa daboolay wixii ay kasbanayeen ذنوبتي قليين با قلوبتودا دبوشي oo iyaga dhama daxal iyo mugdi saartay sidaas daraaded quraanka waa inay yiraahdaan asaatiirul awwaliin waxba ku qaadan maaya waxa jirin bay ka sheegaya quraanka kariimka laana ma diyaarsana inay intifaacsadaan mawaanicda waxa kamid ah walaalayaal الرفقه السيئه صاحبك حل صاحبكaaga xun ee la socoto ee la noosho ee la fadhiisato ee la shahacabto wuxuu ka mid yahay waxyaalaha mawaanicda ee ku diida inaad waanadii wacdiga wax ku qaadato laana isaga ka kaxaynay nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ruuxu saaxiibkiisa ayuu ku diin ku dhaqaya ku akhlaaqiya isaga marka kullu goynay isaga kullu minay isaga wanaagi ka kaxaynay saasaradeed bar rabbi quraanka wuxuu inoogu sheegay nin calaya oo aakhira markuu tagay saaxiibkii oo lugooyadii markuu arkay buu marka calaa la jeesaday oo muxuu tarayaa wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yaday maalinta qiyaamada maalinta iyada kii dhaalimka ahaa labadiisa gacmood buu qaniinaya gacmuhu qaniinaya markaas wuxuu leeyahay laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuuli sabiila shalayte maxaan rasuulka la jirankiisa jid u sameeysan waay maxaan rasuulka u raaci waay jidka rasuulka maxaan u mari waay yaa waylata laytani lam attakhid fulanan khalila shalayte maxaan hebel saaxiib uga dhigtay maxaa ii geebalay alla ku ridkan maxaa saaxiib iiga dhigay war muxuu kugu sameeyay laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani quraanki buu iga lumiyay quraanki buu iga leexiyay quraanki buu iga duway markuu ii yimid kadib meeshan quraanka baran lahaa isaga ikaxaystay meeshan akhrisan lahaa isaga ikaxaystay meeshan darsiga fadhiisan lahaa isaga ilu gooyay oo quraanki iyo dhikri igara mariyay balaayadan maxaa saaxiib iga dhigay buu leeyahay oo maxay ku tari calaalku maalinkaas sidaas daraadee saaxiibka xun iyo dariska xun waxay ku waa maanic kamida marar fara badan khayrka iyo wanaagga intifaacsiga ka hor istaaga intaas oo dhan waxa asal u ah shaytaanka oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala hadaadan kaga cararin waa maanica ugu weyn oo ka hor istaagaya kaalana dagaalamaya inaad waanada quraanka iyo wacdiga wax ku qaadato saas daraadeed baa waxa rabbi ina amray quraanka markaynu akhrinayno
oo bilaabayna akhriskiisa inaan ilaahay magan galno shaytaan ka magan galno وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله لأنه مانع وكهل منسينيا معنيه بكودينيا قال شدي بكاهر استاجيا داودي سمحيته استعذ بالله الله كعر الله كما قال تبارك وتعالى وموانع ذا أبو خطرسن dadka inta badan iyo waanada iyo wacdiga quraanka inay qaataan isuddiida ee kala dhex galay mawaanicdaasi haday meesha ka baxdo biidin Ilaahi tabaaraka wa taala shuruudi aan soo tilmaanayna la helo booski saalihaha iyo qalbigii noolaana aad la timaado quraankii oo mu'athiro saameeya ana aad hesho inta hadaad isla hesho biidin Ilaahi tabaaraka wa taala quraanku wax buu ka bedelaya noloshaadana saameyn buu ku yeelanaya qalbigaagana saameyn buu ku yeelanaya hadalkaaga iyo ficilkaaga iyo xubnahaagana wax buu ka bedelaya aakhiradaada iyo adduunkaagana waa ku anfacaya waa marka aad la timaado qaabkii aad quraanka uga faa'iideysan lahayd oo ah waxyaalaha hor istaagayana inaad meesha ka saarto shuruudahana inaad ku dadaasho la timaado booskii iyo weelkii wax ku qaadi lahaana inaad diyaarsato taa iyadaaba wax ku iman karaan sallu wa sallimu على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين